فايسة ولا سوري الباب كوفرن يهي إيه ورن محاد هيسا ولا وانا بد واني جاك سويها ليلي واي دير رمضان تينا وين نجاك الله dhib ma laha oo waan arkayaa in hawsha kugu badan tahay bal ka waran ganacsigii soo masaarif fiican kama heshaan alxamdulillaah ilaahay walaalo wuu noo roon yahay nimcaan ku jirnaa walaalo waa nimca ilaahay dushiinaan ka arkaa carruurtu markay ii timaadana aad ayaan ugu farxaa waa maashaa allah walaalo haye bal ii waran waa naxay markaad ila soo hadashada tidhi ii kaalaye ma wax dhibaa jira maya walaalo dhibaata ma jirto alxamdulilah calaa kulli xaal haye maryan inaad walaacsan tahay waan arkaaye maxaa dhibahee soo kordhay walaalo ninkii cabdi ayaan maalmaha fahmi lahay cabdi muxuu leeyahay ma warwareeg buu bartay maye maxaa warwareega waxabu walaalo iigu hanjabay gabadh labaad baan raadsanaya ma faadma soontii baan keenayaa buu yidhi maya walaal waxabu aaminsan yahay inaanan jeclayn oon dayacay markaasuu ii hanjabaya miyaad ka shakiday mise wuu kuugu hanjabay maya walaalo wuxuuba iigu hanjabay maadaama oo aad ganacsigaaga ku mashquulsan tahay oo aad isku filan tahay waa inaan guursadaa gabadh labaad maxaad ka xajisanaysaa ninkan muxuu kaaga sheegayaa hadduu naag labaad rabo oo markaa walaalo ma carruurtaydaan bilaa aabba ka dhigaa noqon maayaan oo aniga ayaa kuu haynaya intaad shaqaysanayso isaguna wuu soo boqon karaa carruurtiisa carruurtanaaba fikrigu hayso walaalay carruurta keliya maahee ninkaad ka fikiraysaaye dhibta iska haysa haddaba mar dambana ha ii yeedhan sugdee adigu ninkan miyaad rabtaa iskaba eri ninkani hadduu guursanayo faadma soontiisana ha raadsado oo walaalo ma carruurtaan aabbahood ka eriyaa iyagoo xoog u jecel maryanay haddaad tale iga rabtood ii yeedhay mid baan walaal kuu sheegaya waxba ha ii sheeg inay dhegayso haya waan ku dhegaystay ninkan iska fur haaya laakiin lahaane ninkan eri baan kuul shaqadanaan hayo ayuunbuu walaal ii yara diidan yahay xal kale ila raadi naahu baan kuuli walaalo waynu soomanahaye horta yaynaan dembaabin naa dembi kastaba aduu noogumaad yeedhin istaaqfirullah runta iga dhegaysa gabadh yahay biilkii gurigaad bixisaa waana lagula guursanayaa caqli waagu kaa maray ma guri joog baan iska noqdaa taasina iima sahlaneen walaal waxaan kuuli ninkaa iska fasaxda adiguna quruxooda wad u dayartay iska shaqayso ganacsigaagana ka midha dhali faysa taladaadu walaalo iminka ma ninka iska furba naa eri saw calafkaagana uma daayari adeera jaamac adigiyo faarax kolay kafeeya shaah cabi maysaan oo ramadaane maxaan kaloo idiin qabtaa aad baad u mahadsan tahay waad fasaxan tahay bisha ramadaan soo dhammayso anigu afurrada hoteelladan u doonan doonaa soo sidaa ma aha faarax aabbo insha allah amba xaggan xafiiskaana loogu keeni doonaa afurka xaggana waa meel si fiican magaalada looga daawadaan in nagu taallaayo xafiiskaagu waa inuu noqdo meel qurux badan waxay soo jiidasho u tahay dadka doonaya guryo iyo wax la mid ah inay dhistaan waxayna rumaysanayaan waxaad u qaban karto aabbo iminka muddo dheer ayaad keliga ahayd hooyadayo aad ayaad u jeclayd iminka 10 sanno aaba sii mootantee allah u naxariisto hooyadaa qof aad u fiican oo aan jeclaa bay ahayd weliba bishan oo kale ee la sooman yahay aad bay noogu fikiri jirtay aabbo haddaad mar labaad guursan lahayd waan ku farxi lahayn anigii walaalahayba yaa maxaa tiri aabbo adigoo iga raaliya ii sheeg haddii jirto gabadhaad isha ku haysa waayo annaga farxad bay noo ahaanaysaa inaad hesho wehel waayo de annagu imka si fiican baan u kornay laabta kuma hayn inaan guursado mar dambe ilaa ikraan yar ay si doqonnimo la ila dhaqantay oo aabba maxay kugu samaysay maanay yartii ku raali gelinaysaa ahayn waxay weydiisay waxaan ka damacsanaya hooyadeed isir hay-adeedna haddii aanay sidaas samayn lahayn weligii mar dambe kumaan fakireen inaan guursado hase ahaatee haye waxaan u malaynayaa inay asxaan ii samaysay ikraan aabbo sidee bay asxaan kuugu samaysay uma aanan fiirsan hase ahaatee maxaanad u fiirsan umaan fiirsan ayada hooyadeed isir inay tahay ruux naadir ah oo ay yar tahayba xilligan qof dumar ah oo la mid ahi aabbo hadalladaadu sarbeeb ayay wada badan yihiin wiil yahow ramadaan kariim baan ku idhi iyaalow mad ciyaarta iga daysan hooyo waan shaqaynayaaye hooyo anaa isku buuqsane aan yar iska kaysoo ag fadhiista mise inaan igu dilaa doonaysaa marin eedda qudaartantii ta iin dhig way ka afuray haa eedda mar dhoweyd baaba furaye soo dhowow wah marin eedda sida wal injaran qudaar u sumaa bahayto lamadan bere
oo eed awlaado ma dukaankan shaanti waab ku shaqaysad waysantaa sow aabahood ma raba inay halkan joogaan meeday u shaydin mee waabay wareeriyeen sug horta untunto soo fadhiista waryaa halkan haddaanan idin garaacin iga soo fadhiista halkan ay wareerinine bismillaahi bal sug ilunku ku dhoosho alla hooya ii aamusa idinka iga cadhaysiiyey ma jecli inaan idindila rabadaan taas saasay dhaba eedda owlaadunku boorsido naamadiino khudradda ma kuu dhigaa mise imikaad qaadanaysaa xamaray iin dhig laakiin tanta laka afuri kora ma eh macmiishii oo dhaniba sidaasay ku qaateen eeddu tan galabtu oo badeerta walliga ma ognagta eeddu saaka khudraddeeda ma inaad iga caydaabaad iigu timid bismillaahi eedda qudaarta ma koo aayne walileba ka eray ma fayle ma jara taasi miyaanay cay ahayn bismillaahi geeka caadimihiidi maryanay may halaawsan eedda wax badan baa khaldane adna ha iga darine khudraddaada ama qaado ama hadhow soo mar bismillaah maryanay dhibka kaxaay sida ma ay kiilo ogaado midaad wax ka qaban karta maahee sidaa raalli ma ku ahaan kartaa haye maryana ilaahay keen fududaayo owlaadale inuusku dhammaytoy naamadiinoy maanta shuqul kalaabaad gelaysaaye khudraddaadan iga qaado anigu ma hayn karayee haye shaan rabadaan kariim eeddo nabaday xisaabtani maanta waaba ii xidhmilaadahay 1 2 3 4 5 silsiladahani wax badani kamay hadhin horta ikraanay goor dhaweyd maxaad ii sheegaysaa hooyoy ganacsigu aad buu u socdaa hedhasooma moodo dukaanku inuu nagu yar yahay xilliga ciidana macaamiil badan baa imanaysa waa inaan dhaqso dalab ugu diranaa dubay dahabkan waa in la soo kordhiyaa oof eeg silsiladahan iyagu waabay dhammaadeene haddii ay macaamiishu u baahdaan hooya maxaan yeelaynaa hooyoy dhowr jeer baan kaa raaligeliyey noloshaada aan soo farageliyey su'aal baanse rabaa haddeer inaan ku weyddiiyo bal ii sheeg waxaad doonaysa inaad i weyddiisto waa anigaa dhigay shaqadiiaan hayey laakiin ha igu xanaaqin waa su'aal keliye xanaaqayga ka baxo bal ii sheeg waxaad doonayso shaqo badan ayaa ii taalle hedha waxaan in badan la sheekaystay aabbahay maanta qof weynoo qaangaadha ayaa tahay kaama hor joogsan karo la kulanka aabbaha markaad doonto waad arki kartaa hedha hooyoy adiga aabba xaaladdiinnu maxaa xumaanta sidaa u weyn ugu dambaysay hedha maxaa idin dhex maray ilmo carruura ma tiidigraanay furriinka oo dhan baa xumaan ku dhammaada aabbahaana fikirka uu ka qabo haweenka shaqeeya mid uguba maaha marka ama arrinka shaqada unbaa idinkala fogeeyey arrintu dhaqankuun ma aha waa in qofka dumarkahi ay leedahay xulasho iyo kala doorasho nolosheeda ah oo ma fahmin maxaa uga jeeddaa ka digtoonow qaladkaan sameeyoo kale inaad samayso markaad guursanayso hedha hooyoy wax badan waynu iska baran doonnaaye waxaan kaloo rabay inaan wax kuu sheego hee waa maxay haddana aabbahay warsame ayaa dhowaan i weyddiiyey fikirka aan ka qabo inay suurtagal tahay iyo in kale maxay suurtagal sideeya inaad adiga iyo aabbo hedha dib isugu soo noqon kartaan iyo in kale yaa naa muxuu yidhi baa tidhi waad mahadsantihiin saaxiibayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin arooskeenuna rabadaan buu ku soo aaday markaa rabadaan mubaaragna waan idin leeyahay dhammaantiin inta arooska timid waxaan jeclaystay anigoo carruuskii ah inaan ka qaybgalka xafladda idinkaga mahad celiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xaaskayga hodan ee quruxda badan sidoo kale hooyaday saynab iyo walaashay yaasmiin oo qarashka arooska naga bixiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaya hooyo waxaan ka cudur daaranayaa caawa isdhaafdhaafkii dadka iyo hooyo cagtii arooska ayaan hargab ka qaada waan xabeebsanay wakaa ka warran hooye faysal walaal wanaagsan aroos heer saraabaad u dhigtay hooyo cid walba way faraxsan tahay adigu waad faraxsan tahay faysal iyo hodanna way faraxsan yihiin bisinka hooye yaasmiin maxaa adiga farxaddii kuu diiday maxaad ii weyddiin laadihiin dukaankaygii waxaa ku dhacay waxaa ku dhacay baa tidhi ba dukaankii hooyo adigiiyo faysal dukaankayga dembe kama lihidin naa maxaa ku helay ii sheeg dukaanka maxaa ku dhacay hooyo adigoo aan su'aashaydii iiga jawaabin ayuunbaad xaggan u soo carartay ii sheeg ma dukaankii baa kacay hooyo sideenu u kicin waad arkaysaa inuu kacaye yaab
naa dukaankii dhammaa sidee buu kaaga kacay ooyo maanigaa taa ugu wacan waxaad u baahnay daaweyn welina waad u baahantay in xanuunka lagaa daaweeyo yaasmiin hooyo ma xanuunkaygii ayaa kugu noqday xanuun maxaad aragtay waxaan arkaa mar walbaad xanuunkayga soo hadal qaadaba waad walaacaysaa taada keliya maahee wax kaloon loola faraxsanaan karin ayaa jira bismillaahi raxmaani raxiim maxaa tidhi hooyo adaa ku adkaystay inaan kharashka arooska faysal bixiyo bismillaahi raxmaani raxiim oo haddaan ku idhina adaa igu khasbay inaan dharka arooska ka wada bixiyo xaaska faysal alla yaasmiinay hooyo arooska iyo dharkii aad u iibisay ma dhibaad qarsanaysay ayuu noqday anigu dhibtaadaan ka fikirayay adna faysal iyo hodan farxaddooda ayaad ka fikiraysay waa habeen farxadeed iyo arooskii walaalkaaye murugada jooji yaasmiine ilaahayna tala saaro maxaan isilowsiin karaa ma waxaan igu dhacay hooyo yaasmiin bal gurigaynu kaga hadli doonnaa wixii ku qabsadaye horta farxad yara dareen faysal wuxuu ogaa inaan lacag badan khasaaray ma faysal baa khasaarahaaga ogaa markii doontii bagaashka ii saarnaa ee aan caymiska lahayni degtay wuu ogaa waxaasaad igu kalifteen ooyo hadda maaniya faysal baa eeddu labadiinnuba arrintaas sababaa u ahaydeen kaalay hooyo murugada iska daaye alla xanuunkaygii burooyinka